Bismillahirrahmanirrahiim. Waxa aan rabaa Soomaalida inaan u cadeeyo buuggan ani malaa'ig baa garbahayga saaran. Buuggan hal sano ka hor bay waxaan soo xaday dad idinka wax kale ku mashquul. Ani lambar arkaan waxaan ula baxay siraha badan oo Soomaaliya anfici doono ayaan halkan ugu jiraa. Buuggan waa buuggii madaxafkii Masar ee khaaska ahaa ee alaabtii Fircoon lagu kaydinayay lacag badan baan ku soo bixiyay. dowladda Masarna waxay isku dayi jirtay weligeeda Allah inay qariso kooxda Fircoon halka ay ka timaadeen iyo waxay ahaayeen iyo asalkoodii. waxaa jira marka aan rabaa inaan idin xaqiijiyo buugga hal sano maxaan u soo bandhigi waayay. waxaan baarayay bal waxaan horta ma runbaa ma beenbaa waxyaalaha aan ku rumaystay buuggan baan rabaa in la wadaago oo qof walba oo Soomaaliya baar arrinta waxaan ka bilaabay buuggan waxa uu sheegay markaa arkay waxyaalo badan oo la yaab badan baan ku arkay xataa dadkaas diimaha caabudi jireen iyo waxay caabudi jireen baa meesha ku yaal. waxyaalaha aan mucjisada aan kula yaabay waxay ahayd oo buuggan kula cajiib badnaaday soola qolada la yiraahdo heeb soocadka ah ayaan baartaan u galay. waxaan ogaaday magaca saalax ama sool ayaa ku fara badan markay abtirsadaan oo fiiriso sool bay galayaan magac soola la dhaho soola ya magacaas halkaasaan ku xaqiiqsaday inay qolada loogu jeedo nin kasta oo la heeb sooco bal abtirsadhe soola meel buu ka soo gelayaa ama midka labaatanaad iyo saduusan garanaynin ba 14 koreen 20 hadduu gaarsiin karo anaa kabaha raashinka ii saarsan hadduu soola geli kari waayo. waxaan baaray haddana qolyahan geela iyo ariga dhaqda ee buuraha ku nool ee xoolo dhaqatada ee Soomaalida ah ayaan baxay marka kuulan iyo koola wuu ka buuxaa ree maxaad kuul ree hebel waa ka buuxaaba magacaas waa shahaadanaysaa. waxyaalaha mucjisada ee buuggan aan ku arkay bay ka mid tahay. waxaan kaloo ku arkay jidda dadka webiga dega markuu ku leeyahay waxaan arkayba qabiil dhan oo jidle la dhaho oo webiga dego oo meel webi ahayn maba degaanba oo Soomaali ah. waxyaalaha buuggan aan ku cajiibka ah ee uu ku sheegay waxa ka mid ah ku leeyahay dadkaasi haddii gabartooda aad aragto oo gabar iyaga ka mid ahi aad guursato waxaad ku ducaysan jireen soola gabdhahooda way yaraayeen. waxaa dhacday ku leeyahay soola dad cad oo carab ah bay ahaayeen laakiin markii dambe oo ay jabeen isdhex galeen dadkani oo muddo 50 sano meelaha isla deganaayeen dad waxaa jiray yiri ay dhaleen oo ay guursadeen qoladii jiida iyo qoladii kuula ahaa bay guursaday qaxarka ahaa kuwan qaxarka ah way guursadeen. waxaa dhacday yiri xataa kuwii guursaday iyaga ayaa ku eka waxaa dhacday markii kuwan dalka laga saaray kuwa carruurtoodii xataa kuwaas la qaxay jiida iyo qaxar la qaxay buu ku leeyahay. haddii aad baarto wuxuu ku leeyahay marka aniga hadda dhiicanintooda dadka baari lahaaba xaqiiqatan been kuma sheegay waxyaalo badan oo igu sheegay baa kamid ah waxa kamid yiri gabadhooda waa loo duceyn jiray oo ilaahiyooyinka meeshaas wuxuu ugu duceyn jiray baa la yiri in uu ilaahay siiyo ninkii guursado inuu cimri dheer iyo caafimaad siiyo yaa kamid ah buuggan waxyaalaha mucjisada aan ku arkay. bal gabar adiga wakaas qolyaha la heeb soocay guurso nin guursado arag sokor nin qaba arki maysid nin xanuunsan arki maysid nin jiran arki maysid way ka xoog badan yihiin way ka orod badan yihiin waa waxyaalaha aan la yaab wuxuu ku leeyahay ducooyinkan kuwan hadda meelaas ma geli karayo oo diintayda iga mamnuucaysa meelo badan oo wax ku caabudi jireen baa jirto oo dadka boqortooyada ay u lahaayeen dhaqan oo la yaabay oo yiri gabdhahooda haddii la guursado qaaliga ahaayeen yacnaa waxay aaminsanaayeen inuu qofka caafimaadayo hadduu xato xanuunsanaa inuu weligii alle xanuunsanaynin inuu cimri dheer yeelanayo. hadda markaa fiirso gabdhahan la heeb sooca bal fiir ragga qabo carwaqaas arag gabar ninkeedii dhakhtar jifo dadka la heeb soocaya ma jiraan. waxyaalaha baaritaanka aan aniga idin xaqiijinayo waxaa ka mid ah kuul la baaray qabiil kasta oo geel dhaqda ama bari ha ku noolaada ama waqooyi ha ku noolaada ama xagga ha ku noolaada awoogiisii sanaad tobnaad wuu galaya kuula jidlihii baan baaray waxaan arkay jiita qolada dhiya jiita haddaba qabiilka jidle oo lama dilaya Soomaalidan cudurka dilay ee qabiilka waa qabiil Soomaaliyeed kuma jiro yacnaa jiin webiga markuu yiraahdo waxaas qabiilka jiinka yaa ka jida waxaan arkay xataa qoladii jireerta hadda aad leedihiin idinku ani ma dhihi karaye Soomaalida biyurka waxa xaqiiqatan oo ii soo baxay inay halka aan ka helay jiid waxay ku leeyihiin jiin webi jiitaal iyo waxay leeyihiin juna yeeleyn iyagana qabiiladooda ay galaan markaad tirsato baaritaanka aniga buuggan markaa ii soo bandhigayo waxyaalo cadeyno oo aan ku arko wuxuu yiri kaleeto soola waxaa lagu yaqaanay biro ay lahaayeen karaamada waxaa ka mid ah buu ku leeyahay hadduu musbaar ku mudo hadduu qodax ku mudo oo alisay iyaga oo kaadinin oo markaa soo kacay oo wejigiisii wato biyo lahayn igu tuf aan dhahdo isla one day ma arkaysid meeshii buu ku leeyahay dhacaamaysa infection ka qaaday
taa unba hadda aani baaritaankeeda ii laaban oo rabaa inaan baaro karaamooyinka soola lagu ogaa waxaa ka mid uu kuley lagu yaqaano markay bir ku muddo ama sili ku muddo ama ay lug ku bararto infection ku qaado haddii lagu tufo iyaga ay kugu tufaan iyagoo soo kacay oo hurdo ka soo kacay oo aan kaadin oo weji dhaqan ilbiriqsi ma dhannu ku leeyahay taa unba hadda aniga ii laaban baaritaankeeda wada hadduu ila yidhahdo oo nila qaybsan doonaa intaa kale waan xaqiijiyey markaan buuggan soo xaqiijiyey waxa uu sheegayo ayaan xaqiijiyey wuxuu yidhi dadkan la yidhaahdo jiitaha iyo dadkan la yidhaahdo soolaha wuxuu ku leeyahay waa dad masiibo ah oo maaragtay dadka kuulaha la leeyahay kuulaha xoolo dhaqatada annaga u badanna marka Soomaali soola waa dad nadiifa oo buyuur ah oo caraba oo rasmi ah oo la yaqaan oo carabaha dalka asalkooda ka yimid ama dalkan caadiga u lahaa ee rasmiga ahaa intanada kale waxaan ahayn jiita iyo aanu nahayn qoladii la dhihi jiray كولا وادد دب مرن بوير وادد أن واحد ربان إنك عم برا لغة هاي مويان واحد رجوا كلام له كله دد كاسيتو وادد كي مركي دد كي ماشي كسارين يجين يجوا واير بابين الرفاض واحد سمي واير ويكل التهريبين بكله قار هالكاسي كوارن قار وكون وبيا بدي كوار وهالكي بيدقراين قارنا وحوير waxay u carab kuwii kale soolaa ah wuxuu yiri iyaga iska ilaalin jireenoo sida xayawaankii bay dur galeen oo ay noqdeen buu yiri kuwa cuno ma artay xayawaanka waarta cunaan ya noqoto iyaga iskaga carraan wuxuu ku leeyahay buugan aan kula yaabay waxaad arkaysaa buu yiri jiitaha iyo nimanka la yiraahdo kuulaha waa annaga Soomaalidana kale waa dad qabyaalada wuxuu yiri waxay iskaga midoobayaan buu qof kasta oo iyaga aan ahayn way ka midoobayaan way midabta koorayaan way la ficiltamayaan say ku dhacday dhahayaan buu hadii aad iyaga fiiriso yiri oo maanta kuule basa war kuulow kale aad dhahdo oo dhado war kuulow haye oo iyaga is xukumaan way isxasdayaan buu yiri jiidan isuma ogola nolol isuma ogola xaasinimadu xataa waxa arkaysaa buu nin walaalkii oo nafta ka baxayso oo reerkiisa gaajaysan aan sumani siinin bad arkaysaa buu kuleeyahay wuxuu ku sheeganaya qabay haduu laakiin jiitaha uu soo weeraro yiri qolada la yiraahdo kuula ay soo weerto qabiilka kala wuxuu yiri hubkay qaadanayaan buu yiri waa dharkii qaadan nafteeba ka go'aysaa buu yiri u dhimanaya hadii laakiin jiitaha keligi iyo kuulaha oo keligooda ay iyaga nool yihiin buu kuleeyahay walaalkiisoo dhimanaya xataa waxba uma qabanayo kuleeyahay qabiil baan isla sheeganayaan haduu jiitaha soo weerarano ninkii xataa kii dhimanaya ee gaajada kan shalay wax siinaya xataa ma warkan waxba kuma siinayo wuu ku curiyamiya kaasa ku dhama xataa dhimaya qabyaaladaas waa wax wuxuu yiri waxay la ficiltameen buu yiri xaaraan waxay la ficiltameen buu yiri oo la falgaleen buu yiri dhibaato waxay la falgaleen buu yiri qaxar iyo halaaga iyo waxa ay dhibka iyagda waa dad dagaal jacayl halaag jacayl qaxar jacayl wanaag ba ma jeclu kule dadka in gacan bir lagu dhiga mooyaan buugaasi waxyaalaha aan ku aaminay ayay kamid tahay idinkana waa ila aamini doontaan haduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ku arkay buugan wax cajiib ah oo cajiib ah meel aan gelin baa jirto buugan oo diinta ka baxsan oo aan diiday inaan galo oo diinteeda ii fasaxaynin ayaa jirto haddaan la qabsado Soomaalidan dadkan aan waxba aaminin waxbana dhageysanin maskaxda aan u bixiyay waa kulligooda dhan waa receiver ma laha engineer maqalku u sameeyay lama heli karo Soomaalida dhibaatada haysato dhibkan waa laga bixilay waa saas waayo ana 7 sano idinku daalay oo wax walba intusay aniguna waxaan ahay lama arkaan waxaan oo la baxay sirahaasan daba galaa waxaan idin soo sheegaa waxyaalo idinka weyn waxaan idin soo sheegaa waxyaalo idin maskaxdiin qaadin karin waana la arkaa 5 sano 6 sano ciidan nool in life baa loo taaba wax aan soo sheegay 7 sano ee qadka ku jiro oo la aragna ma jiraan haddaan la arag ii soo dhig Facebook waxay tiraahdaa lama aragne TV-gan ku soo dhigaya anigana waa ku soo cadeyntadan ku soo dhigaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliya oo ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan in soo la ahaayeen ee asalkooda ahaa intanada kale waxaan nahay jiita iyo waxaan nahay kul oo qaxar iyo halaag oo dhibaato wada oo aafisin baan nahay oo dalkan ka degilaya buugan wuxuu ku qoraa marka hore afkii faraacintii waxaa lagu turjumay carabi isagoo oo baaba'san oo yaabayso garanayso qofkan buugan wuxuu ku sheegayaa Soomaali halkay ka timid aan la inkiri karaynin Masar ayaa haysay weligoodii Allaheedna waa dan ka meegelin sababtoo ma ahayn taariikh dadeed bay ahayd oo Soomaaliya ah buugan waxaa ka dhaxleen oo ay laga soo qaaday faraacintii fircoon gurigiisii markii la helay alaabadii fircoon bay ka mid ahayd buugan marka carabi baa laga dhigay halkan xabeen aniga yaaba ka jiraba hadda inta la hayo anigana aan ku guuleystay inaan soo saaro buugi marka waxa la yiraahdaa asal afriq soul
intaan taa buuggaa gelin dad badan baa waxay soo weydiiyeen markaan ka hadlay ogaadeen iyo nimanka la yidhaahdo ii sheeg waxaa la dhahaa qoladii aan anigu hadda soomaalida la yaso ee la quursado insha allahu tacaala dad badan baa waxay dhaheen magacan midgaanka ka daa waxaa laygu yidhi laheeb sooca dheh taas dad baa itoosiyo aan ku mahad celinayaa dadkan laheeb sooco waxaan doonayaa inaan hal idinka dhadhacsiiyo war anigu soomaali baan ahay wallaahi billaahi tallaahi inaanan been idiin sheegaynin magacan aad igu salaynaysaan ee aad u malaynaysaan inaan ogaadeenahay miihi waxaan rabaa soomaalida ilaahay wuxuu ka dhigay khaa'in wuxuu ka dhigay daacad ninaan rabin mid aan diin rabin war waa dad ilaahay inta waxa ka maqan dhiishka maqalka ayaa ka maqan soomaalida haddii dhiishka maqalka lahaan lahayd waa receiver kulligooda dhan waa transmission wax bay gudbiyaan laakiin receiver ma laha dhibaatada soomaaliya ay la degilaad ay haysato dadka receiver hadday lahaan lahaayeen wax bay faa'iidi lahaayeen wax bayna dhegaysan lahaayeen wax bayna maqlayeen wax baan iska bedeli lahaa dhibaatada soomaaliya ay waxba iska bedelaynin dadkoo dhan waa transmission waxaan qaada anaa kuu sheega waaye receiver maba ogolaba qofka soomaaliya inuu dhegaysto jaahilnimadii annagoo noo sii dheerta haddana waxaa ka sii daranba uqdad rabbaani ahoo waxaana saaranba ma artay iska dhicin ninka ayaa lagaa dhicin miyaa I don't know waa wax rabbaani oo dhiiggeena galayba waa buuggan suu sheegayo buuggan dad baa iga codsaday wuxuu yidhi soomaalida waxay ahaan jirtay 3 qaybood weligin miidan maqal aniga ka hor dhegaysta soola jiita iyo kuul soola waxaa la yidhaahdaa buu dhihi jiray dadka xeebaha degan ee markaa ganacsiga ilbaxnimada haysto yaa soola la yidhaahdaa buu leeyahay dadkaa waa dad cadcad waa dad carab garanayso kuleyl inuu hayo ah oo dal kuleyl ku nool asal ahaan inay carab yihiin oo cadcad yihiin baad dareemaysaa buu dadkan soolaha la dhaho dadkan marka soolaha la yidhaahdo waa dad degan waa dad qabow oo kuul ah waa dad aanan dad dhibaato ahayn waa dad ma aragtay mas'uuliyad ka muuqato waa dad xukumayay buu yiri dalkaas weligii yaali waa kun iyo wuxuu leeyahay taariikhda Yurub markaan idinkugu bedelo 46 ama wuxuu leeyahay 900 buu ka bilaabaya ilaa 1040 uu leeyahay intaas u dhaxaysa iyo 800 sano ilaa 1040 buu leeyahay buugan dawlad Soomaaliyeed baa la kaashan doona hadduu Ilaahay yiraahdo waan la soo saari doonaa waxaan rabaa inaan idinkaga sheego sool markuu dadka noocaas ku tilmaamayo wuxuu leeyahay jiita oo iyagana waxaa jiro kuul kuwa la yiraahdo kuul wuxuu ku leeyahay waa dad kulul oo waxay degaan buu ku leeyahay buuraha iyo qarriga iyo maartay webiga ma ogola biyo ma ogola waa dad wuxuu yiri kuleel iyo qaxar iyo qad oo xoolo dhaqato ah buu yiri oo dhaw kuul ilaa waxay isku xiran yihiin biiro Ethiopia markaas wuxuu ku leeyahay dalka Ethiopia ana hadda Ethiopia magac kale isku sheegayay wuxuu leeyahay hadda aan hilmaansanayn dalkaas wuxuu ku xiran yahay buuray degi jireen buu dadkaas ilaa dadka halkaas waxa u maleynaya kuwan hadda waqti dambe beenta laga sameeyay ee la yiraahdo kushitigi inay taan u maleynaya wuxuu ku leeyahay dadkaas cool baa la yiraahdaa buu ku leeyahay cool waa wuxuu ku leeyahay waa dad haraatan waa dad kulul waa dad qaxar iyo dhibaato iyo halaag iyo ma aragtay qarid inay deganaadaan jacayl buu leeyahay waxa ku xigu ku leeyahay jiita marka wuxuu ku leeyahay waa dadka wabiyada dadaan buu ku leeyahay waa madmadow waa gaagaaban yihiin xogo wajigooda waa ka balbalaarin kuwan Afrikaanku sheegaya dariskana leeyahay ama aan dhahno magac kale aan dadka kala macaaye saad u farsanay tala dadka waa dadka asalkooda Afrikaan ahaanta ah oo Afrika soo jeedo wuxuu ku leeyahay dadkana jiita la yiraahdayo waa wabilay buu leeyahay oo biyaha wabiga iyo dhinacaas degayin markay wax u baahan yihiin jiita iyo kuul wax u imaan jireen soola wuxuu haystay ku leeyahay dhulka xeebaha oo dhan ee Soomaaliya haysan jiray wuxuu ku leeyahay waa dad ganacsataa waa dad carabahaas iyo halka ku xirraa buu ku leeyahay soola marka dad oo xukumayna weeye dhaqaale iyo siyaasad badalka Soomaaliya xukumay weeye buu leeyahay marka waxa dhacday buu leeyahay waxa yimid oo soo gaajooday oo kuwan abaar iyo wax keenayba qolada dhijida jiita oo wabiyadii iyagana ka guray buu leeyahay oo rafaadsan iyo waxa yimid buu leeyahay nimankii dhihi jireen cool iyagana kuwana oo imaadeen waa la dajiyay buu leeyahay waa raashin waxba la siiyay waxa ka tirsanaadeen buu ku leeyahay heshiis baa la galuulay marka inay dhulkan wax dhibaato u geysanin inay la deganaadaan inay walaalo yihiin inay sidaas isaga oo magac guud markaas aan lagu ballamay in la sameeyo waxa dhacday marka jitaha
يسوع ليه كلها waxay hoos ka heshiiyeen buu leeyahay inay ninkan u qabeeyaan oo la dagaalaan waa dad qaxar oo dhibaato miiran oo xaaraan iyo xalaalba kala jecleen buu leeyahay oo dhiba oo dadkan soolaha ee degan ee qabo walaalada soo dhaweeyay aanan u ogoleen noloshu leeyahay marka way weerareen buu leeyahay marka buugani way weerareen markay weerareen way jibiyeen kooxdii soola markay jibiyeen baabi'iyeen way baabi'iyeen buu leeyahay wax badda ku dhamaado wax yar oo ka haray oo ka cararay buu leeyahay oo maaligoona dur waligood duurka ku noolaayeen waa dadka hadda aad heeb socdaan buu yiri maaragtay ugaarsanaya buu yiri ugaar bay galeen buu yiri saas ku ugaarsadeen buu leeyahay marka waxa dhacday buu leeyahay nimankii jiita iyo nimankii la dhijir kool waa isdhaxgaleen oo way isguursadeen buu leeyahay awalba laba qaxar bay ahaayeen dalkoo dhanna way la wareegeen buu leeyahay iyo dadkii oo dhan saasa marka nimankani loo yasay buu leeyahay oo loo raacdaystay buu ku leeyahay waxa dhacday ku leeyahay marka nimankii markay sidaa noqdeen noloshii ay ku adkaatay ganacsigiina ay ku adkaatay meel ay aadaan garan waayeen badiina ay garan waayeen ayaa waxay sameeyeen buu leeyahay inay qaarkood iyagu qudhigoodii ay ku soo foolaato nolol aad u xun oo iyagu qudhigooda xataa ay kala jajabeen oo qaar dhan ma noloshannada hore ku laabano qolaj qaar ay dhan annagana jiitadana maan ku laabano qaarna halkoodiiba iska joogeen qaarna waxay u safreen halka iyo Masar buu yiri oo waa qolada fircooniga leeyahay buu ku leeyahay buugan hadda ninka maartay turjumay Asaalixdiin marka buugan hadda rabtaan waan idin wadaya mashruuciisaas intaasaan ka sheegaya buugani taariikhdana waa taariikh dhab ah oo xaqiiqatan wuxuu ku leeyahay nimanka soo la yiraahdo waa niman degan waa niman akhyaara waa niman aan dhibaato iyo ma aragtay ka nasan asalkoodu inay way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay jiitaha iyo way ka qurux badan yihiin buu ku leeyahay labadan waa laba isguursato ku leeyahay asal ahaan marka fiirsan Afrika ku leeyahay laakiin jiitaha iyo nimanka la yiraahdo kuulaha oo kuwan beeraha iyo kuwan duurjoog aafad xoolo dhaqatada dalkan dadka sidan u galay baabi ilaa xilliga horta waa annaga way intaanada kala way inta soo la ahayn Soomaali sheegato dhan waa jiitahaas iyo waxa way kuulkan dhibaatada wada ilaa xilligan aan degi laana wuxuu yiri waa dad dhib maran waa dad kharaad miran waa dad saas ilaa fiir buuga xilliga ka soo sheekeynay Soomaali wuxuu ku leeyahay dad fiirso qofka asalka umma Soomaali ma bagalu ku leeyahay umma qalmaba dadkana jiitaha iyo kalenta wuxuu yiri uu ka degan yahay uu ka akhriyarsan yahay uu ka deeqsisan yahay uu ka wanaagsan yahay uu ka ixtiraam badan yahay xataa laftiis marka fiirso ku leeyahay waa ka qurux badan yahay ku leeyahay isku laf ma isa ka qurux badan marka nimankan aad u bixisaan heeb socdaan Soola la yiraahdo ay la socda waa asli waa madaxdeennadii rasmiga ah waxa isku tagay labadan Mooryaan ah jiitaha iyo kuulaha annaga ka koobanahay Soomaalidana kale waan wadi doonaa cashirkan insha Allah ta'ala la socda professor badan baa soo codsaday Soomaali badan baa soo codsatay insha Allah ta'ala buugin waxa laga codsaday inaan la kaashado dad badan oo Soomaali ballan qaaday inay daabacayaan marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh